waddan kastoo adduunka xoroobay waqtiga xornimada dawladda haysatay waxay u diraysay UN-ka warqadda xorriyadda oo la odhanayay state order waddanka waa UN-kan usoo gudbinay dal buu noqonayaa Soomaaliya kontonkii ayuu Talyaani ku wareejiyay meesha la yiraahdo UN-ka maamul UN-ka hoos imaaday ahaayeen lixdanka la xoreeyay buu laakiin state order muu qorin state order keeni 26kii June aynu helnay ay inagula midoobeen iyo calankeeni calanna iyagu may qaadan state orderna male marka haddii la kala go'o oo legally aynu ku guuleysano dalka aynu ramayno nahay Soomaaliya waxay ka qabtaa warwar in sharciyadeedii dalnimo meesha ka baxdo kadibna ay eligible noqoto in si dawlado badan ku hamiyayaan qaybna Soomaaliland la raacay qaybna Kenya la raacay qaybna UN ku haystaan qaybna Ethiopia la raacay waana tii ku dhadhow yihiin qodobka labaad ee ka yaacaan waa arrin dhaqaale Soomaaliya iyo Somaliland waa isku macne Soomaaliya waa Talyaani Somaliland waa Ingiriisi waa ardu Soomaal labaduba inaguna Somali Republic been wada dhisanay oo wax sidii Soviet Union u dumay buu ahay laba jamhuuriyadood dhisan way in khaldaano waxay moodeen in Soomaaliya ka mid ahayn Soomaaliya waa Somaliland af Talyaaniga magac Talyaani in weligeed ma isticmaalin Soomaaliga waxa dhacday hadaba aragti dhaqaaleed baa Somali Republic jirtay dhowrka meelood ee wax soo saarka ugu badan ee dakhliga ka soo xaroon jiray dhowrkuba Somaliland ku yaalaan mid wax weyn hawada midna waa dhulka ruutiska ugu badan ee mashquulka ee Asia iyo Afrika u kala wareega diyaaradaha dusheena mara waa qaybta Somaliland halka maraakiibta dhulka ugu badan ay isticmaalaan badeena xuduudaha Somaliland soo laba qodob ma milyanis in wax la raada hawada oo kala san bishii waxa ka soo xarooda 4 milyan oo dollar oo waxyaalaha ka maarmila yihiin koonfur ugu dhisay bayska militariga berbera soo saddex ma xoolaha nool soo afar ma cashuurta kasta